Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal kooban oo ku saabsan dowladdii Cusmaaniyiinta. Magacaygu waa Cabdixafiid Bashiir. Halkanina waa kanaalka Cilmi Baaris. Dowladdii Cusmaaniyiinta, oo sidoo kale loo yaqaano boqortooyadii Cusmaaniyiin, waxay ahayd mid ka mid ah imbaraadooriyadihii ugu waaweynaa uguna saamaynta badnaa ee soo maray taariikhda Islaamka iyo tan dunidaba. Waxaa aasaasay Cusmaankii koowaad qarnigii 13aad, waxayna soo gaartay ilaa bilowgii qarnigii 20aad. Boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay ka soo unkantay beelo Turki ah oo ku noolaa Anatolia, dhulka maanta Turki loo yaqaano. Cusmaankii koowaad oo ahaa hogaamiyaha beesha Ugus Turki ayaa aasaasay boqortooyada sanadkii 1299. Cusmaan iyo kooxdiisii waxay bilaabeen inay ku fidaan dhulka ay ka taliyaan boqortooyadii Byzantine iyo qaar ka mid ah boqortooyooyinkii kale ee ku yaalay dooxada Anatolia. Dhaxal sugaha Cusmaan oo ahaa Orhan ayaa sii ballaariyay dhulkii Cusmaaniyiinta, isagoo qabsaday magaalada Bursa oo noqotay caasimadda cusub ee boqortooyada. Suldaan Maxamedkii labaad, loona yaqaano Maxamed al-Faatix, ayaa qabsaday magaalada Constantinople oo ahayd caasimaddii Byzantine sanadkii 1453, taasoo calaamad u ahayd dhammaadka boqortooyada Byzantine iyo bilowga Cusmaaniyiinta ee hoggaanka bariga Mediterranean-ka. Qarnigii 16aad iyo bilowga qarnigii 17aad waxay ahaayeen xilliyadii ugu wanaagsanaa ee boqortooyada Cusmaaniyiinta. Suldaan Sulaymaan al-Qaanuuni ayaa hogaaminayay boqortooyada intii u dhaxaysay 1520 ilaa 1566, waxa uuna ballaariyay xuduudaha boqortooyada isaga oo gaarsiiyey ilaa bariga Yurub, waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe. Xilligii Sulaymaan, boqortooyadu waxay gaartay heerka ugu sarreeya ee awoodda militari, dhaqanka iyo dhaqaalaha. Qarnigii 17aad iyo qarnigii 18aad, boqortooyada Cusmaaniyiintu waxa ay bilowday inay hoos u dhacdo. Sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa khilaafyo gudaha ah, maamul xumo, iyo duulaamo joogto ah oo kaga imaanayay waddamadii reer Yurub. Dagaaladaasi waxay sii weeqeen awooddii Cusmaaniyiinta. Qarnigii 19aad, boqortooyada Cusmaaniyiintu waxay bilowday isbeddello cusub si ay u xoojiso awoodaheeda. Isbeddeladani waxaa loo yaqaanay tansiimaad, waxaana lagu soo kordhiyey nidaamyo cusub oo maamul, ciidan iyo waxbarasho. Dowladdii Cusmaaniyiinta waxay si rasmi ah u dhammaatay kadib dagaalkii koowaad ee adduunka. Markii dagaalku dhammaaday 1918 oo ay xoogaggii xulafada ahaa ee dagaalka ku guulaystay ay gudaha u galeen caasimadda Istanbul. Sanadkii 1922, suldaankii ugu dambeeyay Suldaan Cabdixamiid ayaa laga riday talada, waxaana la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga oo uu hogaaminayay Mustafa Kemal Atatürk. Dowladdii Cusmaaniyiinta waxay ahayd mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu waaweynaa uguna saamaynta badnaa taariikhda, gaar ahaan tan Muslimka, iyadoo xukuntay dhul ballaaran oo ka mid ah Aasiya, Yurub iyo Afrika, waxayna caan ku ahayd awoodaheeda militari. Inkastoo ugu dambeyntii ay burburtay, laakiinse saamaynta ay ku yeelatay dunida Muslimka ah waa mid weli raadkeedu sii muuqdo.